majaajilistihii weynaa ee Cabdi Jaylaani Malaaq Marshaale ayaa maanta Muqdisho lagu aasay. Cabdi Jaylaani Malaaq waxa uu ka mid yahay fanaaniin badan oo lagu dilay si gardarro ah 22 sano ee ugu dambeeyay gudaha Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho. Shalay ayaa dablay bistoolada ku hubaysan toogteen fanaanka oo kana mid ahaa shaqaalaha telefishinka caalamiga ah ee Universal xafiiskiisa Muqdisho. warkan waxaa noo faahfaahinaya Maxamed Maxamuud Timacade. الله naxariistay waxa maanta magaalada Muqdisho lagu aasay Cabdi Jaylaani Malaaq Marshaale oo ahaa mujaajiliiste caan ah oo dalka Soomaaliya si weyn looga yaqaan isla markaana ka howlgali jiray telefishinka caalamiga Universal oo shalay jilinkii dambe kooxo hubaysan ay ku toogteen degmada Waabari ee gobolka Banaadir xilli uu ku sugnaana waaxiga aqalka uu ka degan yahay magaalada Muqdisho. Cabdi Jaylaani Malaaq Marshaale Allah u naxariistay ayaa aaskiisa waxa ka soo qayb galay boqolaal dadweyne ah iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka kala socotay warbaahinta madaxa bannaan ee ka howlgashay gudaha wadanka Soomaaliya. qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay aaska Cabdi Jaylaani Malaaq Marshaale Allah u naxariistay oo gilinkii dambe shalay kooxo hubaysan ay ku dileen magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegeen inay aad uga xun yihiin dilka loo geystay Allah u naxariistay mujaajiliistaha caanka ah ee dalka Soomaaliya sida weyn looga wada garanayay. hase ahaatee Cabdi Jaylaani Malaaq Marshaale ayaa waxa uu da'diisa ahayd xilligan 43 sano sida ay noo sheegeen qaar ka mid ah ehelkiisa. Marshaale Allah u naxariistay waxa uu dhalay amaba hadda ifka ugu nooleed 4 caruur ah oo 3 ka mid ah wiil ay ahaayeen halka mid ka mid ahna gabar ay ahayd. Marshaale Allah u naxariistay waxa uu qabay 2 xaas mid ka mid ah oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho waa xaamilo. hase ahaatee mid ka mid ah xaasaskiisa waxa ay ku nooshahay wadanka boqortooyada Sacuudi Carabiya. wararka qaar oo ehelada aanu ka helnay waxay noo sheegeen in Marshaale xilligan xaaskiisa ku sugan magaalada Jidda ee wadanka Sacuudi Carabiya ay ku howlaneed in sanadkan ay u dhoofiso xadka si uu u soo xajiyo iyadoo la sheegay inay u soo direysay fiisii uu ku bixi lahaa. hase ahaatee Allah u naxariistay Marshaale ayaa gilinkii dambe ee shalay kooxo hubaysan ay ku toogteen aqalka uu ka degan yahay magaalada Muqdisho meel wax yar u jirto. warar kale oo ehelka Marshaale aynu ka helnay ayaa sheegaya in hooyada dhashay Cabdi Jaylaani Malaaq Marshaale oo saaka damacsaneed inay ka soo baxdo magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose iyo ehel kale oo halkaas ku sugnaa in loo diiday in ay soo baxaan kadib markii ay cunaqabateen ku soo rogeen kooxda Al-Shabaab oo ka talisay degmada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose. iyadoona loo diiday hooyada dhashay Marshaale inay ka soo qayb gasho aaskiisa maadaama magaalada ay ku sugan tahay ay ka taliyaan kooxda Al-Shabaab. inkasta oo Marshaale aaskiisa ay ka soo qayb galeen dadweyne aad u fara badan ayaa qaar ka mid ah madaxdii warbaahinta magaalada Muqdisho ka howlgalaysay oo halkaas ka hadashay waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in warbaahinta gaar ahaan wariyaasha Soomaaliyeed ay markan wixii ka dambeeyay ay qaataan hubkooda isla markaana isdifaacaan. waa kuwan qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay aaska marxuum Cabdi Jaylaani Malaaq Marshaale oo ka waramaya sida ay u arkaan geerida ku timid Allah u naxariistay majaajiliistaha caanka ah ee dalka Soomaaliya sida weyn looga garanayay. waxaan ku talinayaa saxafiyiinta Soomaaliyeed maanta wixii ka dambeeya inay qoraga iyo kaamirada iyo makrofoonka ay isku qaataan oo ay difaacaan naftooda oo ay si jircad ay isku haleynayaan. waad aragteen wariyaasha ajaanibta oo noo yimaada meeqa baabuur iyo meeqa qoraya lagu ilaaliyaa soo wax tira badan ma ayaga yaa qoro ugu fasaxo anaga naga mamnuuc. marka aniga waxaan qabaa aragtidaas in la bedelo oo ah saxafigu qora ma qaato saxafiga hadii la dilayo cid difaacaysaana aysan jirin inuu isagu isdifaaco waajib ayay ku tahay. ninkii macnaha qofka laga dilayo warkiisa ugu dambeeyo su'aasha la weydiiyo wax waaye shaqada ma wada doonteen haa waa wada la isku dhaca dadka oo dawladda oo mas'uuliyiintana hadalkooda ugu dambeeyo wax waaye insha Allah gacan bir baan ku soo qabaheena marka sheekada gacan bir baan ku soo qabaheena iyo wadeena le anoo socoto wadaagayga qabrigiisa waa sa Allah ugu dhigo jannadii firdawsan Allah ka waraabi gacanta dishina rabbiga ujeedo lagu asoo wallahi billahi bil'aadna la iska dhuntay ilaahay ma dhuuman karo. Marshaale sida ogsoontiin wuxuu ka mid ahaa uu u dhaxeeyay bahda fanka iyo waliba saxaafadda Soomaaliya magac weyn dalka ku lahaa. marka dawladda ku meel gaarka ah waxaanu leenahay si dhaba arintaas inay u kor gasho dhacdooyinkii hore u dhacay ee loo geysanayay saxafiyiinta cid wax ka qabatay habeeraatay ma jirto hatta hal qof oo loo soo qabtay dhaawac wari loo geystay ama dil wari loo geystay oo dawladdu ay soo qabatay ay soo bandhigtay habeeraatay anagu aan ogsoonahay ma jirto.
waxaan ogsoonahay madaxda ugu sarreysay dawladda ku meel gaarka Soomaaliya inay siyaasad ay ku mashquulsan yihiin maalin kastana la leenayo saxaafadda Soomaaliya dawladdu horena waan u sheegay mar kalena waan ku celinayaa waxaan leeyahay dawladdu ha noo sheegto haddii aanay ballan qaadi karin amniga shacabkeeda haddii aanay ballan qaadi karin amniga saxafiyiinta iyo fanaaniinta ku sugan gudaha magaalada Muqdisho ama dalka Soomaaliya waayo annagu dadka iyaga ee dibadaha ku sugan waxaan u sheegnaa in magaaladii Muqdisho ama dalka Soomaaliya qaybaha dawladda ay gacanta ku hayso inuu amni u ka jiro laakiin taasi ay beenaynayso Allah u naxariistay aaskan maanta magaalada Muqdisho loogu sameeyay Cabdi Jeylaani Malaaq Marshaale ayaa shalay kooxo hubaysan waxa ay ku toogteen meel u dhow gurigiisa oo ku yaala degmada Waabari iyadoo aysan jirin ilaa hadda cid soo qabatay dambiilayaashii dilka u geystay majaajilistaha caanka ah ee ka shaqeynaya TV-ga Universal ee Cabdi Jeylaani Malaaq Marshaale ku toogtay gurigiisa degmada Waabari ee magaalada Muqdisho Maxamed Maxamuud Timcade Universal TV Muqdisho